waxa laga yaabaa inay isweydiiso dhalinyarada isguursata isla markaa maxay isku furan qodobadan aan sheegi doona waxay ka caawi doontaa haddaad soo guursatid iyo haddaad doonaysid inaad guursatidbo in guurkaaga dambe uu ku hagaago badanaa dadku waxay ku marmarsiyoodaan calafka ayaa intaa ku eka laakiin calafka waxaa ka muhiimsan qaabkaad u dhaqmaysid iyo qaabka u nooshahay iyo qaabka maskaxdaada u diyaarsan tahay qodobka koowaad ee guurkaaga burburinaya waxaa ka mid ah qofka inaad isku hadaf ahayn oo hadafka ku kala duwan tihiin ama lifestyle-ka aad ku kala duwan tihiin haddii aad mar walba telefoon ka wada sheekaysato qof walbana lifestyle gooni ah uu leeyahay marka aad isku timaadaan labada lifestyle ee kala goonida ah way iskeeni weynayaan waxaana dhacaysa qofkani marka aad ka joojisid qaabka u dhaqmi jiray ama qaabka u noolaa inuu depression qaado marka dambana aad isku xanaaqdaan oo aad isnacdaan oo aad meeshaas ku kala tagtaan maanta xiriir haddaad leedahay waa inaad xoogga saartaa inaad isku hadaf noqotaan lifestyle-kana uu mid iday ahaado lifestyle-ka waxaa ka mid ah qofkan inuu social media isticmaalo baraha bulshada ama haweeney ha noqoto ama wiil ha noqdo haddii aad isla markii tiraadid TikTok waxba ha soo dhigin Facebook waxba ha soo dhigin gabadha waxaa laga yaabaa wiilka waxaa laga yaabaa inuu depression qaado ileen camilkiisa ugu badan ee waqtigiisa uu ku lumi jiray waxay ahayd balwadiisa waxay ahayd inuu video soo dhigo qofka haddii aad meesha kaliya oo ka dhaqaaqi jiray ka xanibtid reerkaaga ayuu ka burburinayaa qofka kula tali inuu isqaawin qofka kula tali inuusan qof kale kaaga mashquulin ee ha kula talinin ama ha kula dagaalamin inuu wax uu qaban jiray uu joojiyo ilaa aad wax cusub u keentid oo aad hal mar ku wada dhaqantaan mooye qodobka labaad ee guurka burburiyo waa communication issue haddii aadan garanaynin sida loo wada hadlo oo midkiin midka kale wax sheegi karin waxa uu tabanayo waxaa dhacaysa qof inuu cabur qaado caburkaasina wuxuu sababayaa hal mar inuu qofku wax soo tufo markuu soo tufana waa markii ugu dambeysay burburkuna meeshaas ayuu ka bilaabanayaa qofka haddii uu mar butaaco waxyaabo aadan maqli jirin baad ka maqlaysaa waana ka niyajabaysaa halkaasina waxaa ka bilaabanaya burbur inta aad guriga ku degdegay marka hore waa inaad iska dhistaan qaabka u wada hadlaysaan iyo waqtiga aad wada hadlaysaan iyo waxyaabaha aad ka wada hadlaysaan iyo marka ay ku habboon tahay qodobka saddexaad ee saameyn ku yeeshay guurka waxaa ka mid ah dhaqaalaha haddii dhaqaalahaagu aad u liito ay reerahaagu marka koowaad kugu caawinayaan inaad guursatid kadibna uusan bishii income ay soo gelin qofkan wuxuu kaaga baahan yahay masruuf cunuu kaaga baahan yahay caafimaad buu kaaga baahan yahay dhaqan buu kaaga baahan yahay haddii aadan lacag haysan waxaa dhacaysa markaasi inuu isnaceebka bilowdo kadibna dagaal uu meeshaas ka yimaado reerkuna uu burburo marka koowaad dhaqaalahaaga ku dadaal inaad kor u qaadid qodobka afraad ee saameynta ku yeesha burburka guurka waxaa ka mid ah cadaadis ka imaanaya familka ama sadohda ha noqoto ama eeda ha noqoto ama cid kale ha noqoto mar walba niyada waxaad ku haysaa reerka aad adigu hadda aas-aastay baa boqolkiiba boqol ka muhiimsan reerkaaga reerkan cusub aad aasaastay mar walbaba ha ahaado number 1 reerkaaga kale noloshooda way soo qaateen caafimaadkooda ku nool yihiin qofka dhibaatoonaya murugoonaya niyadiisu ee buuq ku furmayso waa adiga cadaadis markuu ehelkaaga ka soo fuulo mar walbaba xoogga waxa saartaa number 1 ka dhigtaa reerkaaga si reerkaaga uu kugu badbaado kuna dadaal inaad xal heli kartid xalkaagana yuusan noqon inaad ehelkaaga la safatid adoo burburinaya reerka cusub ee aad aasaastay qodobka shanaad ee reerka burburiyo waxaa ka mid ah xaalada aan xalin xilliga guurka ka hor xiriirka marka aad ku jirtaan haddii ay aamin darro jirto haddii aad degdeg isku guursanaysaan adoo ka baqay qofka inaad weydid waxaa dhacaysa in guurka markaad isguursataan isla markaa aad kala boodaysaan sababtoo ah dhibaato markaa taagneed oo xal u baahneed baa isla markaa xal waxaad uga dhigteen guurka kama difaacayo dhibaatada taagneed inuu kaa xaliyo ee guurku wuxuu leeyahay inaad ku nasatid oo aad ku nagaatid oo aan nimco ka heshid dhibaato haddii taagan tahay ama murun taagan yahay marka koowaad waxa aad ku dadaashaa inaad dhibaatadaas xalisid marka aad xalisid kadib guurso qodobka ugu dambeeya ee guurka burburiya dhalinyarada waxaa ka mid ah imaan darro u maleemayo qof Soomaaliyeed oo imaan darro qaadaya 20 sano ugu horeyso wiil ha ahaado ama gabar ha ahaato iyadoo xadgudub sameynayso inkastoo aysan dhaqankeena ahayn haddaba haddaad maanta dhalinyaro tahay aad doonayso inaad guursatid marka koowaad waa inaad ka fikirtaa inaad isku hadaf noqon kartaan qofkaani lifestyle-kiinana uu isku mid yahay dhaqaale fiican inaad haysatid reerkaagana uu soo dhaxgelin ehelkaaga mar walbaba ehelkaaga waa inuu banaanka ka yahay reerka aad dhistay dhibaatada hore jirtana waa inaad xalin kartaa halka inaad la fahantaa u maleynaya assalaamu calaykum